horta marka koowaad ardayda raba inaan fariin halkan uga diro ardayda imtixaanka warqadaha ay ka shaqaynayaan waa laga wada shaqaynayaa ma jiro imtixaanka badh laga shaqaynayo badh laga tegaya qaar baa suuqa geliye baa la yidhi imtixaanka waa la isku khiyaameynaya badh unbaa la rabaa in laga shaqeeyo imtixaanku wuxuu wataa instructionkiisa waraaqaha laguu dhiibay siduu kuugu qoran haddii lagu yidhi ka shaqee intaa waad ka shaqaynaysaa wixii halkaa lagugu faray unbaad ka shaqaynaysaa warqaddaa ku xukunta war suuqeed ma jiro waana imtixaan barakaysan idinkana barakaa laydinka filaya markaa ardayda fariintaasaan u dirayaa wax werwer la yidhaha ma jiro xaaladaynu la jaan qaadaynaa intaa marka laga tago tirada ardayda sanadkan imtixaanka u fadhiisanaysa waa 11,000 ilaa 11,000 haddaan idin kala saaro inta lab ah iyo inta dhidiga labku waxa weeye 6,168 female-kuna waxa weeye 4,424 markaa tirada guud waa 10,529 11,000 iska buuxsamaya markaa waxa dhici karta ardayaan kaarka qaadanoo lagu timaado oo ama xanuunsanayd marka waa ilaa 11,000 bay noqonayaan qiyaastii goobaha lagu gelayaa imtixaanku waa 200 oo goobood dalka oo dhan askarta ka qayb qaadanaysaa waxa weeye ilaa 1,000 askari ayay noqonayaan marka laga reebo wixii emergency waxa kaloo ka qayb qaadanaya ilaa 200 oo iyaguna supervisors waxa kaloo ka qayb qaadanaya ilaa 100 iyo 2 fasaladu waxa weeye 100 iyo dalka marka la isku wada geeyo macallimiintuna ilaa 1,000 bay noqonayaan qiyaastii ilaaliyayaasha macna fasalkiiba waxa ilaalinaya hal macallin iyo mid kayda ayaa jiraya hadduu ilaahay idmo hadduu kaasi xanuunsado gelaya meesha runtiina waxaan rajaynaynaa sidaa wanaagsan uu inoogu bilaabmay inuu ilaahay inoogu dhammeeyo saxaafaddana waxaan ka filaynaa inaanay sidaa ay waxyihiinuun iyadana u sheegaan oo yar qalqaloocin waa mustaqbalkii carruurta qalqaloocinta aynu ka ilaalino waxbarashaduna waad ogtiino dee iyadu siyaasad ma gasho qoladeeda waxbarashaduna siyaasad shaqo kuma lihin marka waxaynu ku wada shaqaynaynaa saxaafaddana wixii aad aragtaan oo saxa uun tirada goob waa 200 oo goobood weeyi oo masalan waxa ugu cirfeeyo bari ugu xiga meesha la yidhaha buraan galbeedna waxa ugu xiga lowyacaddo waxaana si wanaag sanadkan ku soo biiray imtixaanaadka oon hore dalka u geli jirin taleex oo iyagana markii koowaad ee imtixaanka form 4ka ay la fadhiistaan jamhuuriyadda Somaliland ardaydana maalinta iyay u arkayeen cidhiidhi tahay laakiin markay imtixaanka arkaan iyagana waad wareysan doontaan waxaan filayaa inay habbi ku yihiin sanadkan sanadadii hore uu ka duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay hawsha ayna haysata wixii hawle ka soo baxdana xafiiska imtixaanaadku diyaar buu yahay ardayda hadday wax ka yimaadaan oo diyaar baa loo yahay hadday cawdaana xafiiska imtixaanaadku diyaar buu yahay oo maadaama duruufu sanadkan iska ahaa waan tixgelinaynaa wax kasta oo cabasho ah waan tixgelinaynaa oo 8 saacad kulka ahayd bu Somaliland oo dhan ka bilaabay imtixaankaasi si wanaagsan oo u socdaa wax dhibaatana weli ma soo sheegin ardaydu waa 10,500 inta la hubaa laakiin qaar yar oo xabsadina way jiraan ilaa 11 buu noqonayaa sidoo sheegeen gudoomiyaha imtixaanadu kulka waxa weeyaan waa imtixaan ardayda nasiib amal rideenna way waxba weeyaan horta imtixaanku waa imtixaan jilicsan waa taarifka hore waxay dhigteen weeyaan ma garanaysaa form 4ka taarifkii hore waxay dhigteen iyo wixii sanadadii hore ku salaysan yahay waxay taarifka dambe dhiganayeen waa laga reebo wax liin maadaama iskuulada xidhan yihiin inaanu ardaygu marmar sabab keenin ha noqoto wuxuu dhigtay loo dhigay sawirada ka naqashay kulka insha Allah imtixaankaasina waa imtixaan midaysan Soomaaliya oo dhan u mideeyay insha Allah guul baa ardayna inuu rajaynaynaa idinkana guul baa idin rajaynaynaa